weerarkii lagu qaaday meherada fanaanada Safiya Tusmo xog faahfaahsan barnaamijkuna waa toddobaadka iyo dhextaalka aniguna waa Libaax Barqiye fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed Safiya Tusmo dhawaan ayuunbay ahayd markii ay cabasho ka muujisay hanti dhul iyo guri ay ku lahayd magaalo aqooneedka Boorama hase yeeshee fal waxyeelo ah ayaa lagula kacay oo ka dhan ah meherad ay ku lahayd isla halkaas taas oo loo gubay si ula kac ah sida uu sheegay shaqaale ku sugnaa goobto laba inan baan ku horinay marka inaan isagu xagan u hurdo adu xogaa u jiray marka ana ku dhawaalku ka bilaamay dhacdadan ayaa dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan badbaadada fanaanadan Soomaaliyeed haddaba culayska ay kala kulmayso Safiya Tusmo shaqadeeda fanka ayaa horay u soo jeedisay cabashooyin la xiriira hanjabaado iyo cadaadisyo kala duwan sida lagu soo waramayo weerar ku dhacay meheradeeda Safiya Tusmo ayaa laga gubay meheradii falsi ula kaca looga gubay meherada ayaa gabi ahaanba shuf beeshay oo aanu saxar ka bixin haba yaraatee kooxahan dhibta geystay lama aqoonsan weli inkasta oo aan si rasmi ah loo xaqiijin cidda ka dambaysa falkani inkasta oo warbixino kala duwani ay muujinayaan in dhacdadani ay salka ku hayso khilaafka la xiriira fanka iyo xurriyadda hadalka ee ay Safiya ku dhex jirto haddaba meherada laga gubay waxa ay ka mid ahayd ilaha dhaqaale ee fanaanada taas oo dhaawac weyni uu ka soo gaadhay halkaasi Safiya Tusmo maxay ka cabatay Safiya Tusmo ayaa marar hore ka cabatay hanjabaado joogto ah iyo culaysyo uga imanayay kooxo ku diidan shaqadeeda waxay si gaar ah u sheegtay in heesaheeda ay ku jiraan mowduucyo bulshada si gaar ah u taabanaya taas oo mararka qaar dhalisa in ay waajahdo cambaarayn ama cadaadis uga yimaada kooxo diidan baaritaan rasmi ah oo la xiriira cidda ka dambaysa dabka meherada Safiya Tusmo weli waa mid socda waxaana suurtagal ah in warar dheeraad ah oo la xiriira weerarkan ay soo baxaan maalmaha soo socda ilaa iyo hadda ma jirto cid mas'uuliyadan qaadatay weerar balse dhacdadu waxa ay sare u qaaday dareenka ku saabsan ammaanka fanaanada arqabadaha ay la kulmayso marka ay dib ugu laabato dhulkii hooyo gebagebo weerarka lagu qaaday meherada Safiya Tusmo ayaa muujinaya halista ay la kulmayso fanaanadan Soomaaliyeed iyada oo saameyn ku yeelatay shaqadeeda hal abuurka ah sida qaar ka mid ah kooxaha bulshadu u arkaan inay halis ku tahay aragtidooda siyaasadeed dhacdadani waxa ay furaysaa dood cusub oo ku saabsan xurriyad hadalka iyo hal abuurka fanka Soomaaliyeed Safiya Tusmo ayaa ah tusaale ka mid ah fanaaniinta sida joogtada ah u waajahaysa cadaadisyo fara badan iyada oo xusuusinaysa bulshada muhiimadda ay leedahay in la difaaco xurriyad hadalka hal abuurka iyo fikirka xuquuq ahaaneed halkaas ayaynu kusoo gabagabanaynaa warkeenii caawa oo ay tahay bishii 9 15 2024